maanta waxaan kuu sheegayaa creditkaada sida uga dhisi karta hadduu joogo maanta 400 to 700 sida ku gaarsiin lahayd within 4 months. The formula aan ku siin doono maanta haddaa samayso sida u raacdo waxaan guarantee creditkaada inuu gaarayo 700. Well, soo dhow magacayga waxa la yiraahdaa Daahir, halkan waxaan kaga hadalnaa real estate investment iyo wax loo yaqaan personal development. Waxaan ahay the founder of Sahan Investor, oo platform dadka Soomaalida ay ka bartaan real estate investment. Inshallah nagu soo booqo sahaninvestor.com. Haddaa rabto arrimaha guryaha inaad ka caawiyo ama guri cusub inaad iibsato, inshallah waxaad ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com. Inshallah na soo follow gareey video noocan kala soo aragto. The first thing inaad ogaato waxay noqonaysaa sida kambaniyada creditka calculation ay u sameeyaan. Maxaa muhiim ah, maxaa muhiim ahayn. saashashada ka arkaysa haddaan ku tusi doono marka koowaad aad fiirin doonto waxyaalaha ugu muhiimsan creditka waa in aad ogaato ay kamid tahay waxay noqonaysaa wax loo yaqaan payment history oo ah 35% oo creditka 35% waa payment history. The other one oo ah haddaa fiirsashada ka arkaysa waa 30% waa dead waa deemi lagugu leeyahay 30% ayuu kaa baabi'inaya ama kor u qaadaya haddii aad samayso aad deemaha iska bixiso. Kan kale aan kuu sheegay aan ku daray waxay tahay oo kale waa credit length waxa la dhaho creditka in muddada ay haysatay haddaa credit hadda furatay hore kama boodaya cirka ma galayo laakiin muddo haddaa haysatay wuu ka caawinayaa. So labada kale inaad waqtigaada ku lumiso maaha haddii aad saddexdan aad the payment history dead iyo credit length saddexdaas sidaa ku mashquusho kuwa kaliya intaas waxay isku yihiin 80 iska yihiin 80% creditkaada waa kuwa dhisaya haddaan kugu daray laakiin dadka qaar waa new credit ay qaataan credit cusub ay qaataan iyo wax loo yaqaan credit mix baa jira oo credit card ka qaadanayso ayaga kala nooca dadka qaar Mastercard ay haystaan dadka qaar different credit card ay haystaan. laakiin waxa ugu muhiimsan marka koowaad first ina horta dhibaatada meesha ka jirta aad soo ogaato halkuu ka jira dhibaatada creditkan muxuu u hooseeyaa ina soo ogaato muhiim ah. So the website loo yaqaan jira annualcreditreport.com shaashada ka arki doontaa website ba waxa ka codsanaysa saddexda company ugu weyn ay kamid yihiin Equifax, Experian iyo TransUnion. Ba waxa ka codsanaysa in credit history ay ku soo diraan exact ka codsanaysa in ay ku soo diraan wax walba oo ah ka muuqanayo creditkaada. Let's say cap payment aad bixisa oo student loan lagu leeyahay whatever wax walba lagu leeyahay way ka muuqanaysaa creditkaada. Any loan oo lagu leeyahay ka muuqanaysaa any or collection agency lagu diray way ka muuqanaysaa. So taas markaa samayso website kan ku sheegay markaa tagto waa buuxinaysaa information kaas buuxinaysaa waxay kugu qaadan doontaa 2 weeks inay isku noqonaysaa after 2 weeks warqadda ku soo dhici doontaa warqadda markay ku soo dhacdo waxay ku tusaysaa wax walbo oo deema lagu leeyahay taasi adiga waxay noqonaysaa shaqadaada inaad warqadaasi dulmarto aad ogaato line by line waxa adiga lagu leeyahay deema lagu leeyahay ay creditkaada hoos u dhigayo. taa haddaa samayso waxaad ku arki doontaa waxyaalo aad garanaynin waxyaasha aad garanaynin waxaa ku samayn doontaa wax loo yaqaano dispute. There was a letter dispute letter ay jirtaa haddaa u baahan tahay inshallah iga soo codso waa ku soo dirayaa. So laakiin haddii aad isleedahay arrintan way kugu adag tahay oo dhibaato ay ka qabsanayso waxaa jira saddex company oo aniga lama shaqeeyo laakiin aan ugu macquulsan oo aan aaminsanahay inay ku caawin karaan creditkaada ku dhisi karo. saddexda company aan soo qaatay waxay kamid yihiin kuwa loo yaqaan jira Lexington Law inaan maqasho laga yaabaa waxay leeyihiin wax loo yaqaan setup fees ma laha iyaga zero way laakiin monthly payment waxaa bixinaysaa $100 bil walba bixinaysaa ilaa creditkaada kaaga dhismo. So contract ka saxiix doonaan la heshii ha saxiix no more than 1 year or 2 years ka badan ha saxiix contractigaasi haddii kale lacagta boqolkaasi uu iska soconaya. Second kuwa loo yaqaan waxa jira the credit bros kuwa la jira ayaga waxa leeyahay setup fees leeyihiin $119 ah monthly payment goodan waa $69.99 waa kuwana ka jaban. So kuwa kale waa la yiraahdaa jira credit farm kuwa la jira ayagana wax loo yaqaan setup fees leeyihiin lacag kugu jajgaran markay ku sadab garanayaan waxaan systemka ku gelinayaan feegooda waa zero laakiin monthly payment gooda wuxuu asagana ka jaban yahay waa $49.99 waa $50 waay. ilaa waxyaalaha ugu muhiimsan inaad fiiriso marka kambaniyada intaad hayran ka hor securitykaada u dhisaan wax loo yaqaan transparency wax walba inay ku cadeyn karaan servicekaada adiga aad raadinayso wax ma ku qaban karaan dad adigoo kale shacab adigoo kale ma u qabtaan shaqadaasi. waxaa kale fiirinaysaa qiimahooda inaad ogaato muhiim ay tahay iyo customer service ay bixinayaan wax fiican ma yahay. waxaa kale company the camera reputation kiisa inuu fiican yahay oo dadka ka wada caawinayaan waxaad tagi kartaa Google oo kale tagi kartaa review fiirin kartaa inta badan ay ka caawinayaan inay jiraan. The other thing inaad fiirsay tahay wax loo yaqaan cancellation policy haddaad doonto inaad kansasho marka creditka la say waxaad creditka ku hagaajinayaan 6 bilood 7 bilood ma canceli kartaa muhiim bay aad u tahay waxyaalahaas inaad fiirsay noqonaysaa haddii aad samayso maanta hadda arrintan aan ku sheegay waxaa guarantee ah xaqiiq ah inuu creditkaada dhismayo. inshallah video noocan kala soo aragto inshallah na soo follow garee haddaad rabto inaad guri iibsato aniga waxaa iga soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com. haddaad rabto real estate investment barato ay kamid tahay buy and hold fix and flip subject to wholesaling inshallah igu soo booqo website-kayga sahaninvestor.com. marka la soo qabta assalamu alaykum.